السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أهلي بان حسن موسى iyo kanaalkeeni Leo. Waxaan iska jeclaaday maanta inaan barnaamij podcast ahaan oo anigu kooban inaan halka ku duubo. Waxaan rajaynayaa inaad wax ka dhex saaran doontaan, waxna ka faa'iido doontaan barnaamijkan aan hadda halka ku duubayo. Barnaamijkani wuxuu ka hadlayaa waxa aan qalbiga ku haysta aan dareemayo, waxa aan isleeyahay walaalada Soomaaliyeed maanta way ka qatan yihiin dadka badankoodu. Dadka qaarna wax u tilmaamay ayay leeyihiin, dadka qaarna way haystaan way ka buuxaan, laakiin dhaqaaqii baa ka dhiman. Waqtiga xaadirkan codka duubayo waxa ay tahay 2:55 habeenimo. Anoo iska fadhiyan kombiyuutarka soo dul fadhiistay, waxaan jeclaystay barnaamij aanan dhanaba ka diyaarsan inaan xaad u duubo. Runtii way fiicnaan lahayd waqti aad chance u haysatid, waqti aad keligaa tahay ama meel keligaa aad fadhidid inaad barnaamijka dhageysatid si aad u dareentid inay jiraan dhalinyar badan oo waxa aan dareemay inay jiraan, si aad u dareentid inaan isku dareen mararka qaar aan nahay, meelaha qaarna aan iska sawaabin oo yani ka simannahay. Barnaamijkan maanta aan duubayo waxaan kaga hadli doonaa waxaan inaka dhan yani ina baabi'iyey, inuu diido horumarka, inuu diiday inaan nabad ku wada noolaano, inuu diiday inaan farxad wada helno, inuu diiday inaan horumar hanti iyo jeeb iyo yani farxad horumarneed adduunkaan ka gaadhno. Barnaamijkani waa mid aan iska gaclooday inaan hal mar mikrofoonka ii furan, inta mikrofoonkayga aan furtaan iska hadlo. wax imikada ay qorshaysan ma jiro, laakiin waxaan jeclahay inaan helo dhalinyar badan oo bal aan isleeyahay aanan rajaynayo 80% in dhalinyartu la mid tahay, isku si aan wax u dareemayno, laakiin sabanka la joogo wixii ceebta ahaa uu wanaag noqday, wixii wanaag ahaana uu ceeb noqday. inaan yani aan baraarujiyo in idhaahdo war aan is noolayno oon koraan isku soo qaadno. waqtiga xaadirkan waxaan ku jiraa jiilka dhexe markaan idhahdo waa dhalinyarta dhexda caadiga, dhalinyarta normalka, dhalinyarta oo la isku taqaanta, laakiin 10 sano kadib odayaasha ku beeri doonta, yani waqtiga uu isbedeli doona, dhalinyaramada ka dhex bixi doontaan ku jiraa. 20 jirkaygii ilaa iyo 18 jiradeydii ilaa iyo intan 25 madaxa u soo gaadhayay, noloshu waxay ahayd nolol aan is odhan jiray mar bay isbedeli doontaa, nolol aan is odhan jiray mar bay yani waddankaaga horumarsan aad arki doontaa, nolol aan is odhan jiray mar baad dareemi doontaa neecawda, yani waddan la idhaahdo Soomaaliya ama waddan la idhaahdo Soomaali ay degan yihiin, dhul ay Soomaali degan yihiin horumarsan baad arki doontaa. laakiin ilaahay ma qadarin intii hore o dhan. kasoo qaadada nimka 30 aan jiro, ma 30 sano oo kale ayaan sii sugaa ama aan sii sugnaa in waddankeenu isbedel, yani dhulkeenu isbedel iyo horumar u gaari doono. maantadan iminkaan hadlaayo waddanka jaarkeena waa maantadan aan iminkada hadlaayo diyaaradii 21aad ee xamuulka, yani dadka qaada diyaaradaha ugu waaweyn ah iyo Itoobiya la soo degtay, waa 21aad. waxay qaadaa 360 malaya diyaaradaasi, welibana wareeroo lasoo dhigay baan indhahaas lasii maray oon sii dhaafay, yani waxaan caad usii akhriyay maaha, laakiin waxaan ka hadlayaa waddankaas waa jaar baan nahay. runtii ninka maanta Itoobiya meel kaga soo noolaaday ama soo arkay ee Soomaalida kasoo jeeda dhulalkooga, isagaa xishoonaya, isagaa isla yaabaya, isagaa isyasaya, isagaa 10 nacdalood ku tuuraya cidda xukunka u haysa iyo cidda matalaysa. sababta waxaa yeelay dhalinyarta Soomaalida badanaa markay Soomaaliya imanayaan, hadday qurbaha ku nool yihiin, badankooda waxay kasoo degaan Itoobiya, Addis Ababa kasoo degaan, kadib bay usii dhaafaan ilaa Soomaaliya. badankooda qaarna waxay kasoo degaan dhanka Dubai ilaa iyo Soomaaliya. kuwa Itoobiya kasoo degayo way arki karaan koley garoomadooda iyo dhulkooga Itoobiya se u dhisatay. hadda Itoobiyada aan ka hadlaayo 100 dagaal baa ku furan, 100 jabhadood baa geesas ka cunaya, laakiin shayga waxay aaminsantay Itoobiya never give up la idhaahdo, yani ma joojiso nolosheeda, ma hakiso, way dhaqaajisaa un. Itoobiya hal marna dib uma jeesatay, yani horumarkeeda dhan bay ka wadaa dhanka halka bal iska cunaya. laakiin Soomaaliya
waxaan ku arkay wax yani ummadda Soomaaliyeed aan ku arkay waxay tahay lex jeclo wax la yidhahdo ma laha Soomaalidu. ninka Soomaaliga haddaad aragtid wax lex jeclo la yidhaahdo horta ma laha. sababta maxaa yeelay waddanka qurbaha markaan imanayay eegada aniga ahaan baa iska hadlaya waxaan dareemayo iyo waxaan arkay. waddanka qurbaha markii aan imanayay waxaan soo galay waddan kala nidaam leh oo yani wixiisu wala degan nidaam yahay. alla ilahay sharaabkii ugu horeeyaan banaanka ku cabay ama daasadii ugu horreeyay sharaabka banaanka ku cabay laga yaabaaba inaan airport kala soo degay meel baan ku riday laakiin banaanka kuma tuurin. markay Soomaaliya noqoto laakiin Soomaaliya aan idhaahdo waxaan ka wada Soomaali meel ay degtaba marka ay noqoto iska da nidaame wax allaala wixii maskaxdeena kusoo dhacaan banaanka ku samaynayna wax allaala wixii aad dootid ku shubaysaa banaanka. reero waxaad arkaysaa suga qashinka la suga markuu daadku yimaado markaa qashinka dadka raaciyaan. qashinka adiga aqalkaaga ka qaado daadkaasi xaafad kale ku dhex shubayaa. reeraha qaar xaafadaha qaar buu aqalka u geliyaaba qashinku. ma jiro sharci iyo waxayna kala hagaaya, ma jiro nidaam iyo waxaan yani raacayno. ma lihin dad xil inoo haya oo aan ku tashanayno. sababta waxaa yeelay ninka xilka hayaayay cid allaale cid doona qabiil allaale qabiilku doona ha noqdo wuxuu aaminsan yahay xilka uu qabtay inaan hal qofna una dabagelaynin, hal qofna una waxba ka weydiinayn. ka ugu wanaagsan waa ka caajislowga ee waxba aanan dalka u qaban laakiin aan xoolaha dadka dhicin waa ka ugu wanaagsan. laakiin 98% dhammaan xil dhul Soomaaliyeed laga qabto oo dhanba xoolaha bini'aadanka aad bay u cunaan. xoolaha ummadda Soomaaliyeed aad bay u cunaan yani dhaca xoolaha Soomaaliyeed. waxaasna waxaa keenayaa qof walba oo kursi inoo qabtaayo qabiil buu kusoo saaray yani wax matalaad qabiil buu ku imanayaa. bointigaan ka hadlaya waa halkaa yani qof walba oo xil qabtaay ama madaxweynaha u sareeya ha noqdo ama yani ciidan ninka ugu hooseeya yani meesha position ugu hooseysaba ha noqdo dhammaantood waxay ku imanayaan waa qabiil iyadoonan loo eegin ardaygii ugu wanaagsanaa wax soo bartay oo laga horumarinaya ardaygii liid maadaamuu qabiilkaa kale yahay. ma oran karayo Soomaalida maanta qabiil Soomaalida ka mid ah ayaa dulman. hal qabiila ma dulmano laakiin qabaa'ilada Soomaalida oo dhan baa dulman. taa waxaan u leeyahay si baan u wala nool nahay, fahel baan ku wala nool nahay, waana wala liidanaa dhammaanteen ilan xil ma wala hayneen. waxaanu jecelnahay in xilka u sareeya oo nin qabiilkaaga fadhiyo. waa taa kaleetan yani waxa dulmiga keenaya taasaba. waxaad arkaysaa ninka matalaya maadaama qabiilkiisa intaa raali ku ah intaaba ku qanacsan yahay. hadda isagu waa 25 jir ama 30 jir weeyaan, master buu haystaa. isagu iskuma qanacsan naftiisa horumar gaadhsiiyo ama dhan u dhaqaaqa ama uu idhaahdo noloshan yani waxaad ka bedeshaa laftarkaaga ummadan saxdid. laakiin wuxuu ku qanacsan yahay ninka xilka ku matalaya inuu qabiilkiisa yahay. si kaste 10 shay oo kala duwan xitaa waan rogrogay waan garan waayay faa'iidada inoogu jirta. qanaacada aan qanacsannahay faa'iidada inoogu jirta waan garan laayay. haddada iminkaan codka duubayo berito hore doorasha dhacaysa gobol Maraykan ka mid ah Minneapolis ka dhacaysa. nin Soomaaliya oo u sharaxan maayarka magaalada Minneapolis ayaa Soomaalida qaarkood ay uga codaynayaan maadaama qabiil kale uu yahay iyo ka ahayn. waxayna u codaynayaan nin kale oo cadaan oo maayarka magaalada haysan jiray. taa macnihiigu maaha inaan qabiil duraya ama qabiil aan ka hadlay, laakiin waxaan ka hadlayaa xumaantu halkayna la gaadhay. yani bambooyinkan magaaladeena iyo dhulkeena kusoo xidhxidhnay xitaa qurbaha waa lan tagnaa, toos baan ula tagnaa. markay Soomaali noqotay iyakaa israafa, iyakaa majrafadaha iyo mijiyaha isjabiya. waan sababta aan yani meel alla meel aan iskala qaadnay cadaawada aanan garanayn. jiil walba jiilka kale inuu ka duwanaado yani waa wax qasaba weeyaan. laakiin duwanaanshaheena inaku wuxuu noqday inaan xumaantii aan sii boonboonino. hadda haddii la idhahdo taariikhaha ummadda Soomaaliyeed wax ka sheeg laga yaabaa dhammaanteen intaan ka naqaan ina koobantay. sababta waxaa yeelay wixii laga qoray waa horta kaley in la gubay in la daadiyey yani dadka waddan kale uu rartay wallahu yaclam. waayo waxa Soomaali laga qoray waa kooban yahay. waa iskuullada markaa dhiganaysid
waxaan ku dhiganaa historiyada dadka wadamada kale, history in wadanka noocaas iyo noocaas dhadhadha ayaa lanoo dhigaa, laakiin history ahaan ama taariikh ahaan wadankeena dee waqtigii siyaad bare wixii ka dambeeyey cid nooga sharaxday ma jirto. maba siyaad bare wixii ka horeeyey ama doorashadii yani yeeshee siyaad bare intan kaba sakoba madaxweynihii siyaad bare ka horeeyey aduu yani intan dowladda soomaaliya lagu dhawaaqay wixii ka horeeyey ummadda soomaaliyeed waxba kama garanayso, aqoonna uma baliinba. 60kii wixii ka horeeyey aqoonba uma liinba. 60kii waxaa kasoo horeeyey koley 70 sano waxaan dhanin baa soo horeeyey. 70 sano ka hor aduu qarni wixii ka horeeyey soomaalidu aqoonba uma lahaba, isma waa yaqaanaan baalkay kasoo jeedaan, xitaa muran iskaliyaanba. qaar baa carab iska sheegta, qaar baa aan sheegtay inay kasoo jeedaan meelaha maxay ahayd Israa'iil, yani qaar walba meeshii ay israahdaan calankaaga sura bay suranayaan. ninka Soomaaliga marka aad si gaar u wareysatid gaar ula fadhiisatid adigoo kala qabiil aad tihiin waa gob cid allaala cid wada kasoo jeedo markaad si caadi ula sheekaysatid nin qabyaaladaysta maaha. xitaa ninka social media matalaya ee qabyaaladii iyo qurunkii iyo baabaada halka ka dhex akhrinaya meegaga iyo balaayada qaadanaya, haddii aad si gaar ula fadhiisatid war waxaasi kaftamaya, war waxaasi waa la isku kuleelsadaa ku odhan. yani waxay nala noqotay nolosheena dhamma inaan yani aan wax baktaan si la idhahdo, yani nolosheena dhamma aan iska dabka iska saarno aan ku ciyaarno ayay noqotay nolosheena. taa waxaan u leeyahay waxaynu dhaniba yani qof maanta iminka hadduu wax qabto ama qof hadduu wax xumeeyo ama wax keensado ama wax wanaajiyo ama uu ummadda soomaaliyeed wax ka rabo si walba, yani qof hadduu soomaalida ag yimaadaba waa in horta marka hore in ayadiisa la ogaadaa. balaayo waxaa jirta daba gasha dadka oo qabiilkiisii iyo ciddiisii iyo jufadiisaba meesha keenaysa. taas kadibna qaarna way ku faanayaan, qaarna way ka faanayaan. laga yaabaa nin baad soo dhisaysaa aad rabtay inuu wax noqdo ama aad qorshe ugu jirtay, hadhow marka qabiilkiisa laguu sheega la idhahdo qabiilkiisu waa noocaas, yani waa qabiilkaa kale mooyaan. balaayo waxaa jirta waad ku odhanaysa waryaa kanuma qalbaniyo kan ka dhac. taa macnaheedu waxa weeyaan waxa inaka inala weyn waa qabyaalada, waa qurun qabyaaladu, laakiinse inaka waxay nala tahay wax la caabudo. kulley haddii xitaa la odhan lahaa mid dooro yani wax kastoo wanaagsan iyo qabiil waxaan ku tilmaaman garan waay, wax kastoo wanaagsan iyo qabiil mid door haddii qabiil baan wala dooran lahayn. haddana jil waxaa jira ummadda Soomaaliya ku dhex nool oo waxaan aad u dhibsaday laakiin imika normal iskala noqotay. u fiirso balaayo kastoo xun, balaayo kastoo yani indhaha ugu qabtaan oo xun oo laga cawli bilaysto, haddii 10 jeer aad ku celceshatid hadhow waxay kula noqonaysaa wax normal ah. haddii aad aragtid nin yani qof qowracaya marka ugu horeysa wadna xanuun baad dareemaysaa, adigaaba inaad dhimatay u dhawaanaya. laakiin haddii 100 jeer oo 100 qowrac oo dhowr cisho lagu tuso oo lagu dulgeeyo, marka dambe dhiiggaas iyo qowracaas wuxuu kula noqonayaa neef caadi la qalay, waxani normal kula noqonaya. taas la jigeed qabiilkani dadkii caadiga ahaa ee qabyaaladii iyo qurunkan aanan ku dhex jirin wuxuu la noqday yani sidii loogu celcelinayay meel TikTok la idhaahdo iyo meel Facebook la idhaahdo, meel kasta oo yani Soomaalidu wax soo dhigto sidii ay uga daawanayeen ama ay u arkayeen waxay noqotay wax iska normal oo la noqotay. Soomaaliyeed aan nahay dadka waxaan nahay wallaahi billaahi markaad u fiirsatay dadka waxaan nahay dad ugu faxalsan aan arkay, dadka waxaan nahay dadka ugu kartida badan inta Soomaali aan arkay. dad waxaan nahay yani wanaag iyo qalbi jileec u fiican, yani dad waxaan odhan nahay yani horay wax ka fahma, horay wax kala qabsada, horay jawi kastoo xun iyo jawi kastoo fiican la qabsada. laakiin markay Soomaali meel la iskugu keeno unbay balaayadu waa imanaysaa. runtii haddii la heli lahaa jiilasha kala bedelaya oo wanaag kala shaqeynaya, yani qabyaaladii iyo waxaan meedhaya, haddii la heli lahaa tusaale ahaan dhalinyarteena, yani dhalinyarta Soomaalida kuwooda YouTube-ka iyo TikTok-ga isticmaale aadka welibana yani dadka badan ugu xidhan yihiin, haddii laga dhex heli lahaa 2 ama 3 qof oo Soomaalida yani kay wacyigelisa, waxaan aaminsan waxyaalo badan isbedeli lahaayeen. laakiin maxay kugu taalaa kuweena ugu viewska badan leh ee daawashada fiican haysta waaba kuwa ugu qurunsan weeyaan, ugu axmaqsan.
bal maxaa ka qurux badnaan lahayd haddii aan maanta heli lahayn dhul qurux badan oo doog leh oo yacni deerar yacni iga soo sheeg daara leh oo yacni agabkii bini aadan heli lahaa yacni adduunka dushiisa kuwa la helayno inagoo waddankeenu tareen leeyahay oo hadduu alla ku roon yahay shaqooyin fiican uu leeyahay bal maxaa ka qurux badnaan lahayd laakiin maxaan ku diidaynaa waxaas oo dhan oon qabyaalada uga dooranaynaa haddii la heli lahaa dhalinyaro la xisaabtamaysa kooga xilka haya waxaan aaminsanahay inay wax isbedel lahaayeen khayraad baa dhulkeena ku jira nimca ku jirta sida la sheego oo la idhaahdo shidaal intaa leeg baa ku jira gaas maxay baa waxaas oo dhan hal marna kuma hamino inta lasoo saaray in dhulkeena lagu horumariyo yacni kharad ahaan xitaa meel waxaan kaga naalnaa dhulka meel aad iyo aad u qurux badan meel positionkiisu ay aad iyo aad cimiladu u wanaagsan tahay afrikada dhan oo dhan iyo dhulkaas asiadaas waan isku xidhi karaynaa maraykankaas waxaan ka wadaa yurubtaas iyo dadkaas halkaa usoo taariibaya ee shidaal iyo balaayo usoo doonaya dhulkeenaan soo nabada maad aaminsan tahay yacni ugu yaraan maraakiibta dhulka maraysa waxay bixin lahayn cashuur waa marka u yar tahay haddaan waxba xitaa inaku shidaal bale naga qaadan horumarka lagu sheegay yacni wuxuu ka yimaadaa dad kooban oo ka tashada dhulkooga iyo aayahooga taariikhaha qaar marka laga sheekeynayo waxaad arkaysaa wadamo badan oo dad kooban ay bedeleen wadamo badan oo dad kooban ay horumariyeen ba ayaad arkaysaa dad badan oo waxaa jira horumariya yacni sida nolosha waddankooga iyo dadka aayahooga dambe ay yacni u qurux badnaan lahaayeen naftooda u hura inanka laakiin sabankan la joogay sabankan aanu ku jirnay sabanka adag kolley inuu soomaali soo mara ma malaynayo sabanada kale soo socda ma sheegi karo laakiin hadda soomaalida joogtaa waa soomaalida ugu jilicsan weeyaan waa soomaalida nin iyo naag aad moodaysa inay isku wala mid yihiin yani naag markaan ka hadlayo macnaheedu maaha in dumarkeenu liitaan laakiin raggeena dhani ay wala yihiin sida dumarkoo kale weeyaan yani waa soomaali aan maanta runta isku sheegi karayn waa soomaali maanta ay soomaalinimadu ay kala weyn tahay qabyaalada weeyaan kanba daarooda kanba hawiya kanba maxay kala kanba dira kanba yaasabo waxaas oo dhan baa isla dhaxayaya yani hadda qof soomaaliya oo maanta meel wala fadhiisataan oo soomaalinimo isku barataan wallahi billahi inaan cid kana ka xigsanin yani waa waay yani waa walaalka waa isku luuqad baa tihiin isku af baa tihiin isku diin baa tihiin isku dad baa tihiin isku qoom baa tihiin isku ereyaad kasoo jeedaan maxay taraysaa marka qabiil iyo odayga oo ka dhashay la tacaaruf ogu laakiin ninka waxaan u isticmaalaa la tacaaruf xitaa waan dhaafin sheekadeenu hadda wiil soomaaliya oo ma jiro yani ii sheegi karaya halka aanu kasoo jeedno israhaan soomaalida maxaa loo laayahay maxaase loo garan laayahay waayo dad walba markay waxay yihiin inay ogaadaan ay doonayaan iyakaa baadha iyakaana raadsata iyakaana dabagala dhulka wax laga baadhaayo waxaa tahay laga ogaadayna waa dhulka aad ku nooshahay halka aad ku nooshahay unba wax walba laga ogaadaa inanka maba naqaanaba isr ahaan waxa aynu nahay soomaali unba naqaanaa wax kale oon haba yaraatee naqaana ma jirto wixii gumaystaha ka dambeeyey baan isnaqaanaa intaas baa mashaashada soo galna soomaalida runtii aniga marka aan arko qof ay kala weyn tahay dadnimada yani iimaankiisu uu kala weyn yahay qabiilkiisa waan murugooda yani waan ka niyad jabaa maalin walba waa kasoo beriya waxaad arkaysaa wax yani aad odhanaysid noloshani armay ka qurux badan tahay ba inaad soomaalinimada ka dhex baxdid laakiin qofna wuxuu yahay ma bedeli karayo waxaan aaminsanahay mawduucaygan hadda meel allaala meel oo haysta ayuusan jirin laakiin aan qalbi hadlaayo meel allaala meel aan wadahay ma jiro laakiin kolley waan qalbi hadlayaa waxaan isku dayayaa inaan waxuun sheego
wixii qalbigayga ku jiray. qof walba oo damiir lana uu ka dhex dareemaya ama uu ka dhex qaadan karaya ama uu ogaanaya waxaan ka hadlay wuxuu yahay. muhiimaddu maaha inaan hal mawduuc intaan ka hadla mawduucaan ku socdo, laakiin muhiimadda waxa weeyaan inaanu nahay aanu nahay waxaanu nahay aan ogaano. ani ahaan sabankan aanu joogno maadaamaan dhalinyarta sabankan aan ku jiro, weli rajada aan ummadda Soomaali aan ka qabaayo 30 sano xitaa inay ku dhismayso uma malaynayo. ummadda Soomaali meel ay degtaba 30 sano kadib inay wax iska bedelaan wallaahi uma malaynayo. sababta maxaa yeelay sansaanta hadda lagu jiro ayaan arkaynaa. waxaa la yidhi beebiga waxay dan ugu jirtaa umushana dan ugu jirtaa. hore loo yidhi moogta, ilmaha yar waxay dan ugu jirtay hooyadiina dan ugu jirtaa markay dhalayaan. taa macnaheedu waxa weeyaan waxa aniga dan iigu jirtay, Soomaalida dan ugu jirtaa, waxa dan inoogu wada jirtay inaka dhammaanteenba inaan isku hal dan nahay. laakiin halkii danta aynaanu garanayn, cid inoo maqan ma jirto, ceel inoo qodan ma jiro, waxaanu sugaynahay ma jiro, wax aan rajo ahaan aan xitaa aan ku hiigsanayna ma jirto. waxa xilka hadda haya iyo waxa soo socdaayaba wax isbedel leh oo soo socdaaya ma jiro ummadda Soomaaliyeed ahaan marka loo eego. xilka hadda ninka haya ee Soomaaliya madaxweynaha u ah iyo kuwan inay la tartamaan doonayayba mid ma dhaamo. alalehe mid baa wanaagsan haddaan odhan lahaana waxaa la odhan doonaa qabiil buu ku taageeray. taa macnaheedu waxa weeyaan qabiilku garasho xitaa intan inka badan aan sii sheegana faa'iido waa inooma laha. aniga oo nin walaalkaayo Soomaaliya maanta inaad qabiilkaaga ii bartid faa'iidada kuugu jirta haba yaraatee ma jirto. inaan qabiilkaaga bartaay faa'iidaba ima lahaba, faa'iidaba adiga kuma lahan ka wada. sorry, sababta waxay tahay Soomaalida waxaad arkaysaa dad badan oo ku bixinaya kharash ku bixinaya qabiilkooga Soomaalida horgeeyaan, ka iibiyaan, ku faanaan, ay ka dhigaan inuu qabiilkooga la dheereeyay. taas wax alla waxay soo kordhinaysaa haba yaraatee ma jiro. laakiin waxaa qurux badnaan lahayd adigoo ummadda Soomaaliyeed ka iibiya Soomaalinimada. taas ayaa wax bedelaysa. sababta waxaa yeelay wax lagu faano maanta adduunka dhexdeeda waa Soomaalinimo weeyaan. waayo waddan markaan imika hortagayno waxaanu ku faani karnaa waxa aanu waddankeeno aan kasoo jeedno. deegaanka Soomaalidaad ka imanaysaa, waxaad tegaysaa Yurubtii, Maraykankii, Arligaaba tegaysaa, Soomaaliyaad ka timid, Soomaaliya baad sheeganaysaa. Jabuuti baad ka imanaysaa, laftirkeeda Soomaaliyaad sheeganaysaa. macnaheegu igama aha Soomaalida waxaa loo yaqaanaa one family baa loo yaqaanaa. waa de hal qof weeyaan, meel ay kala tegay haba yaraatee ma jirto. hadda iminka ninka Etoobiyaanka wuxuu leeyahay intaasoo qoomiyadoodu kala duwan, laakiin waa Etoobiyaan. kama kaftama Etoobiyaanimadiisa, Etoobiyaan buu isku yaqaanaa. iyakuna haddaan isma arki karaan way iscunaan, way islaayaan. laakiin markay noqoto caalamka inay iska iibiyaan ama caalamka dhex galaan, waa Etoobiyaan weeyaan. Etoobiya ku faanaya, anu Etoobiyaan baan hayba ku odhanayaa. inaku laakiin gudihiina waan isku cunaynaa, banaankiina ceebteena ma qarsanayno. waa ta xun weeyaan. qofka hadduu xitaa gudihiisa ku xun yahay, laakiin banaanka marka uu soo baxa ceebihiisa uu asturanayo, odhanayo saas baan ahay, waxaa baan ahay, sharaftiisa marka kor usoo qaadi way fiicnaan lahayd. dhul walba ay Soomaalidu degto, meel walba ay Soomaalidu degto, waxaan aaminsanahay maanta dad adoo Soomaaliya dhex degtid in lagaa dhex garanay, lagama dhex garanay qabiilkaa tahay, cidda tahay, meeshaad kasoo jeedid, adigoo is sheega mooyaane. taa macnaheedu waxaan nahay waa hal. aniga ahaan waxaan aaminsanahay isra ahaanteena iyo abuurta Ilaahay uu noo abuuray iyo halkan xundurta uu nagu abuuray ee Afrika
inaanu ka faa'iidaysano ugana faa'iidayno ubadkeena dambe aayaheena dambe mustaqbalkeena waddan walba haddaad aragtid dad walba haddaad aragtidna waxa bedelo waa dadkooga un weeyaan kow dadkeenan social mediaha ku jira ee xumaanteena faafinaya ee ummadda soomaalida isku daraya bahdilkooga iyo xumaantooda ka shaqaynaya kuwa inaan iska qabano waxa koowaad ugu wanaagsan weeyaan laakiin see loo qaban karaa inta nin walba qabiilkiisa haysta ninna ma qaban karo inta nin walba qabiilkiisa uu iska horreysiinaya iskana dambaysiinaya cidna kama soo dhex saari karayso ilaa dhammaantood loo cidleeyo oo la idhaha waryaa anaka soomaali baan nahay anaka soomaalinimaana deeqda qof walba uu idhaahdo oo aanan qabiil la isku taageerin qof walba uu xishoonayaa waxaan garanayaa dad ay ugu qornayd waqtiyada qaar qabyaaladiid laakiin maanta magacyada ugu qor falxumada yani wuxuu isku bedelay ayaan ka wadaa dad waxaa jira heeso soo qaadi jiray oo soomaali baan ahay ku fahmi jiray laakiin maanta qabiilada oo dhan hay soo qaaday yani noloshu si isku bedbedelayso nolosheen waxay noqotay inaan qabiilkii uu noo noqdo wax lagu faano alla leeyahay qabiil hees loo qaado heestii ugu horreysay een noqlo yarka Omar la yidhaahdaa qaaday waqtigaa waan la yaabanayn wallahi alcadiim in qabiil hees loo qaado waqtigaa waan la yaabanaa Omar baa la yidhaahdaa yarka yar qaaday fanaanka qaaday waqti lala yaabay ahayoo in heestii qabiil laga wala dhigay ilaa uu kadib ilkacaas ku xigo oo saas oo dhan loogu kala waday hadduu ilkacaas ugu horreyn ma garan laakiin heesta Omar baan aad iyo aad ugu xasuustaa muhiimadu kolley adduunka waqti kooban baan joogaynaa waxaan tala ahaan idin siin lahaa walaalow haddaadan waxba hagaajinayn waxna aanad toosin karayn ha laga amaan helo dadkan iyakii duroofaysan ee baahan ee dowmadooda ay baahan tahay silicsan tahay haddii aanad marnaba aadan hagaajin karin waxba usoo kordhin karayn fadlan ha kaa amaan helaan fadlan dhibaatada ka daa fadlan qabiilkaa baan ahay waanu ka dharagnay waanu naqaanaa qabiilkaaga intaad noo sheegi kari lahayd fadlan iska jooji intii taariikh foolxuni kuu qormi lahayd fadlan waxaa ka soo dhexbaxa noloshan iska soo xidh shakhsi walba oo qabiil ahaan wax ku cunaan ka hadlayaa jooji waxan nolosha waxay ku qurux badan tahay qofku inuu isagu isqabto waqti kooban intaan la soo gaadhinba isagu isqabto insha allah waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed hal mar isbedeli doonaan fikirkooga wacyigelin ay ka heli doonaan noloshan yani isbedbedelaysa ee ummaddana horumar samaynaysa kenya iyo etoobiya jaarkeena horumarka ka socda waad qiyaasi karaysaan horumaraha ka socda waad qiyaasi karaysaan halka ummadda soomaaliyeed labadaas wadan imika aan sheegay kenya iyo etoobiya labada dhul ay deegaan ahaan soomaalidu ay ka degan tahay wax horumar la taaban karaya inay ka socon deegaanka soomaalida imika marka la eego mashaariicda reelaamida laga reelgariyey yani mooyaane oo deegaanada yani kale ay la sinayd mooyaane ay mashaariic walba etoobiya ka hirgalaa etoobiyada saraa laga hirgeliyaa ay mashaariic walba oo etoobiya ay soo kordhiso etoobiyada saraa laga hirgeliyaa biyo xidhaan haddii noqoto halkaa sare yani ay mashaariic weyn oo dhan iska daa mashaariic weyne bangiga xerada diyaaradda intuu alla kuro yahay meesha korontada leydhka meesha maxaa la dhahaa telefoonada iyo internetka iyo waxaasoo dhan simikaaradii iyo waxaa lagu soo furto waxaasoo dhan ba ay amxaar iyo tigreeba haysta iyo orom hal soomaali oo yani xilka haya arki maysid taa macniga waxa weeyaan meel walba oo degan tahay deganow waxaa tahay soomaali meel walba oo yani aad qoomiyad kale la degantay soomaali baad ka dhex tahay haddaad dhiiga ku darsatid haddaad deegaanka ku darsatid haddaad dhulka ku darsatid meel walba soomaali baad ka tahay isma bedelaysid waliba etoobiyaanka qaarkood waxay aaminsan yihiinba dhulku inuu etoobiya yahay qofka ku noolna uu soomaaliya yahay yani waxay ku odhanayaan qaarkood dhulka anaka hale oo waa etoobiya laakiin adu soomaaliyaa tahay soomaali baa tahay oo dhulka malid mana aaminsanaba badankoogu nin soomaaliya inuu etoobiyaan yahay etoobiyaan uma yaqaanaaba ninka soomaaliga inuu etoobiyaan yahay halkaa waxay geliya wax kale maaha waxaan ka wadaa ummadda soomaaliyeed wax walba oo ay samayso
lama huraan waa soomaalinimadeeda inay hal walaala yihiin inay hal meel kasoo wala jeedaan inay dad kooban wala yihiin in yani noloshoodu inay hal yani one aan wala nahay shaki kuma jiro aniga ahaan waxaan rajaynayaa maalin maalmaha ka mida inaan arki doono iyadoo la iskala wen yahay qabiil iyo qabyaalad ruwaanda wixii ka dhacay waa la xasuustaa iyo xasuuqyadii ka dhexdhacay labadii qabiil ee ruwaanda ku noolaan hadda maanta meel yani dastuurka dhan waxaa ku qoran inaan qabiilba lasoo qaadinba yani qofna qabiilkiisa una sheegin ama lasoo weydiinba horumarka ay gaadhidna waxaa lagu tilmaamayaa inay yihiinba waddanka afrika ugu bilicda quruxda badan leh ninkii horumarka gaadhsiinaya isagaa xilka weli iska haysta cidna kuma haysato kumana qabsato doorasho alla la galo isaga ma iska guuleysa muhiimaddu maaha xilka qofka haysi yani xukunka qofka haya laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in ummaddu ay hesho horumar wax la idhaahdo xasan sheekh maanta xilka soomaaliya isagaa haya haddii la idhaahdo cimrigiisa inta ka hadhan oo dhan ba isagaa si boqortooyo ugu dul fadhiyaya wallahi alcadiim ma kala jecel laakiin waxaan jeclaha kaliya tahay in waddankan uu isbedel sameeyo muhiim maaha ninka dul fadhiya xilka inuu majaartan yahay ama abgaal yahay ama habargeer yahay ama uu jidwaaq yahay ama ogaadeen uu yahay yani muhiim maaha muhiim waxaa ah qofku inuu yani isbedel ummadda soomaalida u horkeeni karayo laakiin weli tii lamaba hayaba xasan duula ayaa la idhahdaa maalinkii waxaa laga yaabaa inuu malaha isbuucii 2 jeer uu duula la idhahdaa qof walbana daliil wuxuu leeyahay yani daliishiisu leeyahay laakiin waxaan rajaynaya inuu madaxda ilaahay noo soo hagaajiyo cid walba ay tahay iyo qabiil walba uu yahay cid walba uu yani soomaalida kasoo dhex jeedo muhiimad waxa weeyaan waan hadalkayga kusoo koobi doonaa inaan noqono soomaali haddaan nahay yani dhalinyarta soo kacaysa welibana jeelka aniga iga hooseeya waayo qofku wuxuu wax ka tilmaami karaya wuxuu isagu soo maray kow waxbarashadooda ay horumar ka saaraan iskana yareeyaan aaladan tiktok la idhaahdo ee balaayada baas ku haysa ummadda soomaaliyeed sababta waxaa yeelay aaladda tiktok haddii soomaalidu badankooga 60% ay kusoo gudbinayaan wax faa'iido leh koley wax badan ba laga faa'iidi karaa sababta waxaa yeelay wax hal daqiiqo leeg ama hal daqiiqo ka yar qof walba soo duubaya bal ka waran 30 second oo qof wax faa'iido leh uu soo duubayo waxaad daawan kartaa 2 saac oo intaasoo boqol oo faa'iido aad ka dhex qaadan lahayd laakiin waa gabadha neekinaysa wiil isaguna neekinaya qabiil la caayayo iyo qurin iyo balaayo dhammaan tiktokarada oo dhan intaa ka shaqeyn sababta waxay la tagay waxay aaminsan yihiin in views helay aan tiktok baan lahaa waa bila views haday maanta ay dhahdo video soo gali ala ilaahay malaha 1,000 qof daawan sadoo badato isaga dhan waxa ku xiran 200,000 iyo wax tabani waxa weeyaan waxayna Soomaalidu rabindii lagama badhigaysanayo Soomaalidu waxay rabtaa wax dhaansiinaya wax balaayo akhrinaya iyo wax qabiil ka sheekeynaya alla ilaahay waqtigii aan qabiil ku dhex jiray qabiilkayga aan haysaa isku soo duubi jiray daawashadiisu aad buu u fiicnay laakiin markaan joojiyey salku soo taabtay tabani waxa weeyaan muhiim mana aha qasab yani inaad mar walba aad xalaal aad tahay oo yani si sax xalaal aad u dhaqmaysa laakiin mar khalaalku kaa dhacay bilaadan baa tahay laakiin isbedel baa lagaa rabaa qabiil haddaad aaminsanayd aniga la firkay qabiil mar baan aaminsanay oo odhan jiray qabiilkaas baa tahay qabiilka laakiin meelna walaal laguma gaadhayo runtaa fiican meelnaba ku gaadhi maysid soco ord waa adoo riyoonaya ordayan weeyaan qabiilku adigoo riyo ku dhex ordaya oo kale qabiil wax allaala wax uu cid uu soo kordhinayo ummaddeena wax allaala wax xumaan uu nagala maqan yahay mooyaane haba yaraatee ma jirto kacaankeena hadda soo kacaya ee dambe waxaan kula talinayaa in ay ka waantoobaan waxa ummaddii ka horeeyay baabiyey waxa jiilkan dhexa imika iyo kalaftirkooga dhexda kaga taagan waxaan horumarkii ummaddeena u diiday ummadda Soomaaliyeed maanta la yiraahdo inta magaalo lagu faani karay dhul Soomaaliyeed degta bal soo tiriya waa Muqdisho Hargeysa Jigjiga Garowe Gaalkacyo Boosaaso Boorama waba intaaba Kismaayo bas waba intaaba yani waddan dhan oo intaa baaxadiisu leegtahay baan haddaan cirkaa geyno
inta magaalo ee la odhan karayo way yara hagaagsan yihiin waa magaalo shicib badan degan yihiin ay ama yani yara qurux badan ba la odhan kara yani qurux cadcadaad taas baan qurux ahaan kaga hadlaya qurux la odhan karahayba waaba 10 ma gaadhayaan inteeda kale oo dhan butuule u egyihiin waxaasna waa horumar la-aanta iyo baahida iyo basaarada waddankeeni taala weligay intaan noolaa isma odhan jirin hooyo soomaaliyad oo tuugsanaysaad arki doontaa wallaahi oo bilaahi intaan noolaa weligay isma odhan jirin islaan kastoo tuugsanaysa oramaan moodi jiray iyo etoobiyada sare inay ka timid laakiin markaad dib u wala eegtid hadda iminka sabanka lagu jiro inta hooye iyo inta aabe iyo inta ilmeera tuugsanaysa tira male una fiirso dhowrkii sanaba sanad walba sanadka ka dambeeya miciishadan iyo waxaan sii qaaliyoobaya intaas horeerood oo 100 kun ah iyo banaan kusoo saartaa baahidooda haddii waxaas oo dhan in lala xisaabtamo la rabo waxaas oo dhan in laga hortago la rabo marka hore in qabyaalada la iska daayaa waa in la noqdaa dad meel wala degan oo isjecel waa in inaku aan is-ixtiraamnaa cid walba meesha ay ku degan tahay haddii xitaa qabiilka la degan karayn qof walba magaalada uu ku dhashay ama uu degan yahay ha lagu tilmaamo sida caalamka kale oo kale yaa tahay halkaad kasoo jeedaa waddanka magaaladaas kasoo jeedaa that's all yani waa nolosha ugu quruxda badan leh halka qabiil loo isticmaali lahaa halka ka timid reer boorama kasoo jeedaa way dhamaatay halka ka timid reer hargeysa kasoo jeedaa halka ka timid reer muqdisho kasoo jeedaa waxay noqonaysaa nolosha saxda yani biniaadamka caadiyan oo qabiilkan ku bedeli karan laakiin sheekada in la tacaaruf way dhaafto walaal maalin dhow waxaad arki doontaa dad laxam kuu xigay haddii adigu aad ka badbaadid bareerkiinu ka badbaadid dad laxam ahaan kuu xigay oo baahi inay u meelaha tugsadaan waxba ay uga hadhin baad arki doontaa iga taariikhe wallaahi waad arki doontaa maalin dhow haddii san lagu sii socdo sababta waxaa yeelay qofku dadku waa inay balaan yeeshaan yani waxa soo socda ay kasii fikiraan arki maysid dowladda soomaaliya oo kasii digaysa hal marinta wax soo qorta odhanaysa waqtiga noocaasa waxaabaa nagu soo food leh dad intaa leeg baa laga yaabaa inay baahi dareemaan dad intaa leeg baa laga yaabaa inay horumar ka gaadhaan dad intaa leeg baa laga yaabaa inay waxa iska bedelaan ma jirto ha sheegin dowlad nagama horeyso dad nagama horeeyaan dhammaanteen waxaanu ku jirnaa yani nolol aan tooshba wadanba tooshkii dhanaaba laga damiyey ummadda soomaaliyeed haddaad og tahay meel walbo ay degan yihiin saan hore nigu sheega waa dad yani la qabsi leh noloshana ka realitygan yani sida saxda aad nolosha ula wadaagay ma tusaale ahaan halkan ku noolaa jarmalka dhalinyartada aragtid way kala ahaan waa wax shaqeeya iyo wax baranaya laakiin dalkeeni xitaa haddii labadaa lagu heli lahaa waxaan aaminsanahay inaan leysi ka nahay noloshan ummadda soomaaliyed soo wala qeexisay ee welibana qaar kale kusoo qeexi doonaan haddii sidan lagu sii jiro oo nolol dhibteeda leh ma dhaweytay waxaan facebook aad iyo aad ugu arkaayo oo nimanka xasuustan isla dhexda kaga dar barnaamijka laakiin sorry maadaama barnaamijka iska furan yahay oon iska sheekaynayo gabdho badan oo reer hebel baan ahay qabiilkayga waa ka qabiilkayga waxaa iga soo bixiya le yani inta soomaalinimadii laga tegay oo taariibay baa ka wada sorry libiya lagu hayo inta soomaalinimadii laga tegay ilaah baa runta ka jeclaa qabiil walba oo soomaaliyeed ka dhex arkaysa qabiil walba oo haddaad ku qorto facebook meel walba ka dhex arkaysa yani qof walba qabiil gaar u sheeganaya qabiilkaas baan kasoo jeedaa in reerkayga waxa ma haysto hooyaday intii yareeda haysa way noo iibisay intii waa laga qaatay 8 kun baa igu hadhay 15 kun baa igu hadhay iga soo bixiya tolkayga ii kaca ilmihii dhalinyarta ahaa ee xitaa taariibay baa quus ka taagan soomaalinimadii bal maxaad ka sugaysaa cid kale ilaahay waxaan ka rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inay noqdaan dad isku duuban 40 daqiiqo ayaan barnaamijka ka duubaya sorry 40 daqiiqo hal mar kama fadhiisan aad un baan u hadlayay barnaamijkaygu ma tafaasiirna yani wax diyaarsan maa laakiin waxaan jeclaystay inaan shucuur hadlo dareen hadlo wixii aan dareemayay aan iska hadlo oo anigoo ah liibaan xasan muuse iyo kanaalkeeni liyo fadlan waxaan iga codsanayaa mar haddaad ilaa halkan ila soo gaadhin ama aad mar un dhegaysateen si aan u dareemo inaan qof soomaaliya la hadlaayay
inaad hoosta igu soo qortid. waxaan kaloo rajaynayaa inaad laagtiyo flowda aan dila dhaafin si uu youtube-kiina kor ugu kaco. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.